qaar ka mid ah jaaliyadaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa lacag ugu deeqay dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle waxaana maanta dib loo bilaabay dhismaha garoonka oo muddo kooban hakad ku jiray maanta ayaa waxaa booqday qaar ka mid ah qaybaha bulshada ee gobolka Cayn waxaana halkaas ka hadlay Xasan Faarax Baad oo ah gudoomiyaha guddiga gacanta ku haya dhismaha garoonkaasi annagoo maanta shaqadiisii bilownay rajaynaynana shaqadaasi inay ku dhamaato ayaan waxaan idiin sheegaynaa si fiicanna idinku sheegaynaa inaanna ka tegayn ee shaqada habeen iyo maalinba wadayno annagoo jeclaysannay ama rabna si uu ku dhammaado muddo yar oo kooban waxaan leenahay walaalayaal ilmaadeerayaal qurba joogta idinkaa dhammeeyey idinkaa bilaabay idinkaa wada waxaannu leenahay heegan baannu idiin nahay sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay Axmed Cabdi Guray oo ka mid ah ganacsatada deegaanka muddana ku noolaa dalka dibadiisa shiinaha wuxuu leeyahay maamaha odhanaysa haddaad doonayso buur inaad ka rarto meeshay tiilay oo aad burburisa gebigeedaba uma baahnid iyo lagu qarxiyo uma baahnid madaraq iyo cagaf iyo katarabiil uma baahnid waxaad kaliya u baahan tahay tallaabada u horrayso aad u qaadda xagga buurta niyad inaad la timaado and we did it Buuhoodle airport buur buu ahaa aan caqliga gelayn in gudin iyo hangool iyo muruq lagu banneeyo aydii iyo dhirtii iyo dudumooyinkii oo maanta uu taagan yahay airport gabagabadiisii un la sugayo iyo dabaaldegiisii ugu dambeyntiina waxaa hadalka isaga dambeeyay qaar ka mid ah madax dhaqameedka deegaanka oo halkaas iyaguna ku sugnaa airportku horta saakadan la taagan yahay waa dhammaad haddii la dhigo wax yar oo ambaqaada u harsan oo labada reenway ah intaas oo haddii la eegana ballaadan haddii la eegana fudud haddii loo soo jeesto oo gacanta la saaro fudud haddii laysku canaadana adag waa ballaaran tahay odayaashii baa dhammeeyey tilmaan oo dhanna bixiyey si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay ee garoonka magaaladani Buuhoodle oo uu hakad galo kadibna ay dib u bilaabaan dadka gacanta ku haya garoonkaasi taasi oo ay sababtay duruufo dhanka dhaqaalaha ah Xamse Xasan Geele TV-ga qaranka Buuhoodle.